السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعو مع سدين سيدو قروح بدن عاد نول فالقشين البوقال كو شيكرينيسان أو الله قرينيسان waxaan ka codsanay inaan subscribe noo saarto channelkeena YouTube-ka sidoo kale taleefano ina soo dhacdo waan kaga mahadcelin lahaa mahadsanid. ugu horreyn waxaan soo qaadan doonaa ciyaarta u dhaxeysa xulkeena qaranka Soomaaliya iyo xulka Algeria toban jirada oo maanta ka furmi doono waddanka Algeria kaasi oo ah ciyaar ay xulka Soomaaliya aad u diyaar garoobeen maadaama uu ka maqan nasiib darro ciyaaraha tafiid kaasi oo la rajeynayo inuu kulamada dambe uu dib u helo maadaama ay ku sheegeen in da'diis aad u weyn tahay laakiin Allahu a'lam sida xiriirka Soomaaliya ay u maareyn doonaan inuu ciyaareenkaasi dib u safto uma muuqato inuu ciyaareenkaasi inuu dib ugu soo laabanayo xulka qaranka toban jirada laakiin waxa ay ciyaartoy tiro badan ay haystaan lana maarmi doono haddii ay ciyaartooyda ahaan uu dhiirigelin u noqdo Cabdixafiid kaasi oo ah ciyaaryahan aad u tayo sareeyo dhanka istaraatijiga ee diyaashaha ka ciyaaray runtii waxa uu sameeyaa kubadin qurux badan laakiin nasiib darro waa aad u xumahay maadaama wiilka uu baaritaan xooggan soo maray ciyaaryahankani baaritaan badan lagu sameeyay sida ay sheegeen inuu ku baasay laakiin kii ugu dambeeyay Algeria ayaa la sheegay in ciyaaryahanka uu ku baasi waayay ciyaaryahankan waxa uu rajeynayaa gool wacan maadaama uu xulkiisa qaranka aan u awoodin inuu matalo bas waxaan rajeynayaa xulkeena toban jirada inay si qurux badan oo isku qabsan doonaan aysan afka ciid u dara doonaan xulka Algeria bas waxa ay muuqato ifafaale aad u qurux badan maadaama ciyaartooyda xulkeena qaranka Soomaaliya ay in muddo ah ay ku tababaranayaan kuna jireen xerooyin loogu talagalay kaasi oo lagu abaabinayay si ciyaartooyda isku qabsan lahaayeen waxaan u rajeynayaa guud ahaan ciyaartaasi maxaa laga dhihi karaa oo ciyaarta hadda waxaa naga xiga 2 saac oo kaliya ma u muuqataa Soomaaliya inay ku guuleysan doonto waqti ayaa u day doonaa laakiin natiijada waxaan jeclaanahay qof walba oo Soomaaliya in dhankeena ay soo marto kuna adkaadaan hadday macquul tahay 2 iyo 1 eber taasi oo aan natiijada qurux badan guud ahaan waxaan leeyahay xulkeena qaranka guuleysto oo garabkiina ayaan taaganahay xil walbaba maxaa laga dhahay ciyaaraha kaleeto oo maanta soo galayo waliba hadda waxaa socda Real Madrid Real Madrid ayaa 4-2 halka Karim Benzema oo 3 ku tuurtay kaasi oo ka dhigan in Roberto Lewandowski oo afka ku haya maadaama Roberto Lewandowski goolasha uu ku hayo 18 gool halka Karim Benzema oo leeyahay 17 gool kaasi oo hadda ka dhigan haddii uu goolka dhaliyo ciyaartan oo noqon karo inuu barajeey karo oo ka dhigan tahay 18 gool waxaana xasud mudan in Lewandowski in muddo uu kulamada ku jiro halka Benzema ciyaarihii bilaawgii ahaa horyaalka bilaawgiisa uu ka maqnaa Real Madrid kaasi oo dhaawac ugu seegay xitaa xulkiisa qaranka World Cup-kii France uu dhaawac ugu seegay sida ay sheegeen laakiin Benzema ayaa soo korseeyay si uu goolinta u difaacday maadaama sanadkii hore uu ku guuleystay goolinta Isbaanishka kaasi oo ahaa ciyaaryahankii ugu sareeyay oo ku guuleystay haddana waxa uu rajeynayaa mar labaad oo ku guuleysto asigoo la tartami doona Roberto Lewandowski kaasi oo ciyaaryahan kaga imaaday dhanka horyaalka Jarmalka Bundesliga uu ciyaar hadda Barcelona oo horyaalka ku laalanayso kaasi oo si qurux badan oo la qabsaday kooxda Barcelona haddana waxa uu qaaday sanadkii ugu horeeyay goolinta waxaana uu ku hogaaminaa xilliga la taagan yahay 1 gool guud ahaan ciyaartaasi waxay ku soo ilaato dib dambe ayaan naga soo socodsiin doonaa iyo ciyaarta kaleeto oo xulkeena Soomaaliya ciyaari doonaan dhanka kaleeto kooxda Dortmund ayaa baraja gashay taasi oo ka dhigan in horyaalka haddii ay Bayern badiso berito ay hoggaankeeda dib ugu soo laaban doonto waa haddii ay Bayern badiso haddii ay badiso baraja garan waxay ka dhigan tahay in isku dhibca ay noqon doonaan haddii laga badiyana weli waxay kasii taagnaan doontaa in ay sii hoggaamin doonto Dortmund guud ahaan ciyaartii Ford iyo Wolves waxaana Brentford ay afka ciid ugu dartay 6 eber taasi oo ka dhigan tahay in Brentford ay soo korsanayso sidii ay Champions League ku tagi lahayd iyadoo 2 kulan handii ay gacanta ku haysatana waxa ay leedahay hadda 52 dhibcood waa haddii ay badiso dhanka kaleeto kooxaha West Ham iyo Crystal Palace oo ku soo adlaatay 4-3 waxaana guusha ay ku raacday Crystal Palace oo tababarahoodii hore ugu soo laabtay Fiorana meesha laga ceeriyay guuldaro farabadan xishiisay laakiin tababarahan hadda ku soo laabtay odaygani caqabka ah da'da ka timid ayaa hadda waxa uu ku guuleystay 6 kulan oo xiriir ah maadaama kulan hore laga badiyay laakiin kulankan hadii lagu daro waxay ka dhigan tahay 7 kulan ayuu badiyay inta uu joogay 9 kulan oo hay Crystal Palace ayaa u muuqato mid ka badbaaday in ay aado horyaalka Serie B maadaama ay hadda leedahay 43 dhibcood
dhan kale tan horyaalka Serie A-da waxaa hadda socda AC Milan iyo Roma oo ah min ever hadda sii maraysa haddii midkii guuleystaa waxa uu sii dhawaanaya halka Roma ay kaalinta afraad ku jirto haddii ay guuleysto waxay usii dhaqaaqaysaa inay usoo baxdo Champions League haddii Milan ay guuleysto waxaa rajadeeda inay imaan karto Champions League sanadka soo socda haddana waxay taagan yihiin semifinal guud ahaan halkaas ayaan kusoo afmeerinaa ciyaaraha hadda aan kaga falaqeynay waxaa idin leeyahay guuleysta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh